weydiimo waaweyn oo culus ayaa gilgilaya quluubta shucuubta dunida. durba way adag tahay warcelino suuragal ah oo suurayn kara tusmada colaadeed ee Ruushka iyo baqdinta caalamka inta kale ay ka qabto in durba loo helo. dadka intooda badani waxyaabaha maankooda ku jira waxaa ka mid ah haddiiba ay dhacdo go'aanna uu qaato Putin iyo maamulkiisa Moscowna ay duulaan weerar ku qaado labada dal ee toddobaadyadii ugu dambeeyay damacooda doonista ku biiritaanka isbahaysiga NATO maxaa dhici karaya. Ruushkase dhab ahaan hadda ma u heelan yahay inuu qaado guluf colaadeed. haddiiba ay dhacdo duulaan toos ah in dalalkani ay kala kulmaan Moscow waa maxay falcelinta ka imaan karta caalamka oo hadda caalwaa ka jooga colaadda ka socota Ruushka iyo Ukraine. imise dal ayaa suuragal ah in durba jawaabta ay bixin karayaan ay noqoto awood military. yaase ka sheegi karaynaa quwadaha ugu tunka waaweyn mase laga yaabaa in ay dhacdo in kala qaybsanaan ay soo kala dhex gasho dunida kale oo ku saabsan ka hortagista duulaanka Ruushka uu ku qaadi karayo wadamada kan. si kooban mawduucaas ayaan ku soo koobaynaa muuqaalkeennan kooban daawadayaal. dalalka Denmark, Norway iyo Iceland ayaa ku biiray wadamo kale oo kordhaya kuwaas oo ballanqaadyo hannaan difaac oo la isku hubo weliba hubanti ah siinaya Sweden iyo Finland, kuwaas oo sida muuqata hadda labaduba si rasmi ah u bilaabay dalabka xubinnimada isbahaysiga militariga ee NATO. sida tan waxay ka dhigan tahay iyada oo la tixraacayo labada xukuumadood ee Helsinki iyo Stockholm xaqa ay u leeyihiin inay doortaan siyaasadooda amni sida dal kasta oo madax bannaan. saddexdan waddan ee Yurub waxay ku dhawaaqeen dhawaan inay difaaci doonaan labada dal ee Sweden iyo Finland haddii ay dhacdo in la soo weeraro inta ay ku jiraan marxaladda gudbinta codsiga ku biirista NATO. ammaanka Finland iyo Sweden waa arrinna wada qusaysa dhammaantayada. haddii Finland ama Sweden ay dhibanayaal u noqdaan weerar gardarro ah oo lagu qaado dhulkooda ka hor inta aysan helin xubinnimada NATO, waxaan ka caawin doonaa Finland iyo Sweden wax kasta oo laga maarmaan ah ayay ku yidhaahdeen bayaan sida muuqata wadajir ay u soo saareen hogaamiyaasha wadamada kan, iyagoo raaciyay inay si degdeg ah u bilaabi doonaan diyaar garow si loo dhaqan celiyo hubinta amniga dalalka kani. damaanad qaadkan cusub ee difaaca ayaa yimi iyada oo dhowaan ay ahayd markii ay Sweden si rasmi ah u shaacisay inay codsanayso xubinnimada NATO, maalin kadib markii dalka ay dariska yihiin ee Finland uu sidaas oo kale tallaabo ah uu ku dhaqaaqay. hogaamiyaasha labada qaran oo dhexdhexaad ahaa ayaa walaac ka muujiyay weerarkii Ruushka ee Ukraine dabayaaqadii bishii February, iyagoo ku andacoonaya in uu asal ahaan bedelay jawiga ammaan ee gobolka kan. waxaa hore iyaguna inay u soo gurmanayaan dalalkani si ka duwan Ukraine ballan qaaday xuduudaha kale ah Maraykanka iyo Ingiriiska, xilli uu Ruushku dhowr mar ku goodiyey tillaabo rogaal ah haddii ay dalalkani ku biiraan isbahaysiga difaaca ee NATO.